mardhow waxaan arkayay aad u qaab daran dad lamaana ah oo kala tagay lamaanihii kala tagay qofka wiilka ama ragga ah ama maxaa la jir ninkii walaashiisa waxay u goodinaysaa dumaashadeeda la furay ayay u goodinaysaa maxay ugu goodinaa waxay leedahay waxaan ka hayaa video oo qaaban adoo qaaban video ayaan ka hayaa videogaas ayaan soo bandhigayaa haddaad yani edeb aad yeelin weyso bal ka waran qof dumaashadaad ahaa walaalkaada owradiisa ahayd walaalkaaga lamaanihiisa ay ahayd qalbigiis meesha ugu dhow uu ahaa oo ka warqabtay video aad ka hayso halkuu gaarsiin yahay xishoodkeen videoga siduu kugu soo gaaray gabadha kale waxay ugu jawaabaysaa waxay leedahay video aad iga hayso waa aniga iyo walaalkaaga oo xaajideena gudanayno waa ayadii zawjkeeda oo xalaashu ahaa oo xalaashooda ay gudanayaan ayaa iska duubeen ama ninka duubayba iska dheh wuxuu gaaray videogii wuxuu gaaray gabadha kale ama wiilka walaashiisa ayuu gaaray taasaa gacanta ku hayso markaasaa waxay leedahay dumaashadeeda waxay ku leedahay markii walaalka ay kala tageen video ayaan ka haya waan soo dhigayaa tan kale way u jawaabaysaa waxay leedahay video aad iga hayso waa aniga iyo walaalkaada oo xaajideena gudanayna soo dhig haddaad rabtid walaalkaagan wixiisa waa la arkayaa aniguna waa lii arkayaa wax dhib maba jiraanba meesha aan gaarsiisanahay u fiiriye meesha aan gaarsiisanahay bal u fiiriye waa meesha ilaahay qur-aanku ku tilmaamay hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna waa meesha ilaahay ku tilmaamay dumarka waxaad u tihiin astur idinkin waxay idin yihiin astur waa meesha baahidaada aad ku gudanayso danahaada aad ku gudanayso oo sirtaada dhan aad kaysanayso haddii sirtaada lagu adeegsay si xun ka waran oo bulshada dhan lagugu diro oo meel xun lagu soo dhigo oo dadka dhan ay ku daawanayaan qabiilkaa ay ku daawanayaan tolkaa ay ku daawanayaan muslimiinta ay ku daawanayaan bal ka waran facshirkaas qoftaas mustaqbalkeeda soo kuma ciyaarin yani qof dhan waxay u ahayd astur oo waa la siiyey gabadha inuu ilaaliyo inuu xifdiyo inuu aqalkiisa geysto inuu xaajiis ku guto oo ilaahay ugu baqo waxaa laga duway video walaashiisa ayuuna u gudbiyey walaashii waxay u goodinaysaa yani xaaskii shalay ku ahayd adduunka dhan ay kaaga dhoweed maantana waxaa loo goodinaya adoo video qaabanaan kuusoo dhigaya qisada labaad waxay tahay taas waa dadka isqabo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ilaahay agtiisa waxaa ugu shar badan dadka ilaahay agtiisa qof xaaskiisa ay isgaareen ninbaa xaaskiisa ku xaaji gudanaya ama gabadhana ninkeeda ay ku xaaji gudanaysaa markaasay sirtooda ay faafinayaan wixii ay soo sameeyeen wixii ay soo mareen wixii ay soo qabteen ayay sii faafinayaan ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dadkaasaa ugu shar badan ilaahay agtiisa bal dad isqabo cawradooda faafinayo dadka kale maxaad ka filinaysaa xeer waxaan gaarnay xitaa in xaasaskeena iyo zawjaadkeena inaan ku dhoorsoonaan loola talagalay inaan faafino xumaantooda meelaha kale aan gaarsiino